waxaa qiyaastaa in hal il ka mid ah indhahaaga mise labada indho wax arkin. kadib dhakhtar indhaha u tagtay, baaritaana lagu sameeyey, dhakhtarka indhaha dhan walba u fiiriyey, iskaana laga qaaday, dhan walba loo fiiriyey. dhakhtarka wuxuu ku dhahay indhahaaga dhibaato ma qabaan, way caafimaad qabaan, cudur ku dhacay xataa ma jiraan, laakiin ma awoodaan inay wax arkaan. in adiga xataa ookiyaal la siinaayo ama daawo loo qoraayo mise qalin la sameynayo xitaa ma baahno, indhahaaga way caafimaad qabaan, laakiin waxay ka caajisayaan inay wax arkaan. waa dareemi kartaa xaaladaas. bukaano badan ayaa aad ula yaabaya indhahay hadday dhibaato qabin oo caafimaad qabaan waayo u arki laha wax. waa su-aal cajiib, taasoo ah in ishu ayn waxba qabin laakiin ay ka caajisaysa inay wax aragto. waa dareemi kartaa caajis. marka qaar dadka qaar waa arkaysa ayagoo curyaan ahayn ay caafimaad qabaan ay inay wax qaban ay rabin, indhaha waxay ku leeyihiin inaan wax arka ma rabo, layma tababarin inaan. xaaladaas waxaa loo yaqaanaa lazy eye ama isha caajisay. marka waa maxay sababta loo leeyahay indhahaas way caajiseen, wax ma arkayaan, maxaa keenayo? midaas oo ah inta badan indhaha keliya wax ma arkaan, oo keliya shayga indhaha arkaya waxay u gudbiyaan maskaxda, kadib maskaxda ayaa fariin soo gudbiso, kadib maskaxda ayaa noo sheegto waxyaabahan aragno. taas waa marka haddii qofka muddo badan uu wax arki waayo, in markaa maskaxda qaybta wax ka arkaysa inay howlgab noqoto, ay ka caajisto iyadoon wax cilad jirin ay wax dhibaato jirin. inta badan xaaladan waa mid caruurnimada kasoo bilaabato ama qofka markuu dhalanayo kasoo bilaabato, oo badanaa ka hortag leh. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qof ka mid ah inuu caad indhaha ku dhasho kale, caadkaas muddo markii la joogo kadib inuu ku weynaado oo caadka laga fiiqo. kadib marka caadka la fiiqo, caadka waxyaabaha oo aragga celiya ka mid tahay. caadka markii la fiiqay kadib ayaa waxaa la arkaya qof inuu weliba arag jawaab bixinayn. marka dhakhtarka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaha aniga caadka waan fiiqay, wax dhibaato dartaa ma haysto, laakiin isha caajisay noqoto. micnaheedu tahay maskaxdii qaybka wax arkaysay ayaaba shaqada ka fadhiisatay. tusaalahaan waxaa kasoo qaadaa gacantaada in aad meel ku xirtid, markii aad muddo xirtid hal sano kadib aad adhahdid ay wax inaa qabtaan rabaa, gacanta waa iska dhacaysa, wax ma qaban karto. taasoo kale lamid tahay, waa wax walba maskaxda ayaa qayb ka mid ah ayay qaabilsan tahay. taas oo markaa haddii aan lagu tababarin oo mar walba joogto looga dhigan in ay shaqadeeda ay ka fadhiisanayso. keliya caadka ma keento xaaladan. waxaa laga yaabaa qofka in uu garaado inuu leeyahay ku dhasho kale, garaado aad u badan oo kale. labada indhana way noqon kartaa marka caajis lagu leeyahay, ishaan lazy eye oo kale noqota mise amblyopia marka la leeyahay kale, labada indha way noqon kartaa, hal il ka midna way noqon kartaa. tusaale ahaan dadka inta badan ila soo xiriiro kale masajyada kale waxay dhahaan indhahayga waxaa qaba lazy eye, ayagoo ula jeedo isha qaloocan. il qaloocan micnaheeda maaha lazy eye. lazy eye waxaa adigo xataa indha qalooc lahayn oo indhahaaga kuu fiican yihiin oo structure ahaan ay kuu fiican yihiin, wax walba ayaa laga yaabaa inay xaaladan ay ku dhacdo wax arki weysid. daawadeeda inta badan muuqaalka soo socda ayaan xoog u saari doonaa, kaga hadli doonaa. haddii xaaladan dhakhtarka uu kaa soo sheegay qaybta commenti igula wadaag. intaasaa muuqaalkan kusoo gabayna. waxaan dirjaa caafimaad iyo indho fayow.